madaxweynaha inuu u safro furunta haddana sawirka uu ku dhacayo oo la socdo ninkii dilaalka ka ahaa dhaca iyo boobka dhulalka dadweynaha iyo midka gaarka loo leeyahay midka danta guud sawir noocee bixinaysa maxaa ka galay arrin ciidan iyo front loo socdo madaxweynaha saaxiibkiis waqti kale ma u waayay uu la fariisto mise arrintaana waxay noqotay war economy dagaal dhaqaale laga sameeyo dadku waa inay isweydiiyaan kuma eedeynaayo laakiin su'aashaas madaxayga ku soo dhacaysa mar walba maxaa laga heli karaa dad noocaas inay madaxweynaha safarku maxay tahay fariinta uu diraayo madaxweynaha runtii arrinkaas waa nasiib darro madaxweynaha ha tago furimaha hore laakiin sida aan kuu soo sheegay saddexda shay oo muhiimka u ah wacyigelinta iyo diyaargarowga ciidanka iyo markii meel la qabto haynteeda tan dhexe kuma aanu nuuxnuuxsan laakiin waxay u baahan tahay oo mudan tahay inaan wax ka iraahdo midalan xukuumaddii ka horreysay madaxweyne xasan sheekh madaxweynihii ka horreeyey iyo xukuumaddaas waxay aad uga soo shaqeeyeen dib u habeynta ciidanka diiwaangelintooda tirada saxda ah oo laga hayo yaa dagaal war ready dagaal yaa diyaar u ah kadib waxa uu xoogga saaray tababaridda ciidan qaran oo leh gorgor oo leh haramcad oo leh 5,000 oo ciidan ahayd Eritrea lagu soo tababaray oo yimid markii madaxweyne xasan sheekh uu xukun qabtay kumanaankaas 1,000 oo ciidan oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba lagu soo tababaray xagee ka baxay ciidankaas uu ku filnaan lahaa runtii in uu Soomaaliya oo dhan amnigeeda wax ka qabto kalena wareego maaragtay ciidamada ajnabiga ah arrintaas waxaan u arkaa inay tahay fashil aad u weyn